guuleysatay Amazon. Shirkadda Amazon ilaa markii dhidibada loo taagay sanadii 1994kii waxay kor u kac samaysay 44 jeer halka Jeff Bezos oo ah milkiilaha shirkadda sanadaha qaar lacagta uu soo xareeyaa ay gaarto 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah. Haddaba maxay yihiin sababaha ka dambeeya guusha intaas la eg? Arrinta koowaad oo ay shirkadda Amazon kaga duwan tahay shirkadaha kale ee adduunka ayaa ah in Amazon ay ahmiyad weyn siiso qofka macaamilka ah. Waxa la sheegaa in Jeff Bezos mararka qaar uu si toos ah ula soo xiriiro qofka macaamilka ah haddii qofkaasi dhibaato sheegto. Maalin kasta waxaa ka adeegta shirkadda malaayiin qof oo ku kala nool dunida dacaladeeda. Jeffna wuxuu isku dayaa inuu la xiriiro inta uu awoodo. Sifadaas oo ka dhigtay Amazon shirkad aad loo jecel yahay, sida uu yiri Warren Buffett oo kamid ah dadka ugu caansan Mareykanka. Ninka iska leh Amazon wuxuu leeyahay qaab isaga u qaasa oo uu u maro macaamiishiisa si uu farxad geliyo, waana ta ka dhigaysa shirkadda ugu wanaagsan ee adduunka. Arrinta labaadna waxay tahay ixtiraamka shaqaalaha. Shirkadda Amazon waxay caan ku tahay ixtiraamka shaqaalaha, iyada oo mararka qaar la arko maamulka u sareeya shirkadda oo wax ka dhageysanaya shaqaalaha hoose. Waxayna aaminsan yihiin in qofka haddii kalsooni lagu siiyo inuu fakaro soona gudbiyo aragtidiisa ay kor u qaadayso awoodda shirkadda. Mid kasta oo kamid ah shaqaalaha shirkaddana wuxuu u fakaraa mas'uuliyadna u qaataa sida inuu isagu yahay milkiilaha shirkadda. Waxaana ka mamnuuc ah madaxda sare ee shirkadda inay ku qayliyaan shaqaalaha. Jeff Bezos iyo shaqaalahana inta badan waxay u dhaqmaan sida dad saaxiib ah. Waxa uuna si joogto ah uga codsadaa inay fikradahooda ku soo qoraan waraaq si uu kor ugu qaado fikirka shaqaalihiisa. Saddexaadna waxay tahay ahmiyadda waqtiga. Shirkadda Amazon waxay ahmiyad aad u weyn siisaa waqtiga oo ay aad u ixtiraamaan howlwadeenadeeda. wuxuuna waqtiga agtooda uga xisaabsan yahay daqiiqad iyo second. Waxaana la baraa shaqaalaha oo tababaro loogu qabtaa ahmiyadda uu leeyahay waqtiga iyo in aysan waqtigooda dayacin ugana faa'iideystaan wanaagooda shakhsi iyo midka shirkadda. Midda afaraadna waxay tahay ilaalinta balanta. Amazon waxyaabaha ay aadka ugu duwan tahay shirkadaha kale waxaa ka mid ah ilaalinta balanta. waana mid kamid ah sababaha ay macaamiishu ku jecel yihiin shirkadda Amazon. Halkudhigyada shirkadda waxaa kamid ah ixtiraam balanta si macaamilku ku ixtiraamo. Shirkadda Amazon waxaa jira meel macaamiishu ku soo qoraan cabashadooda ku aadan dhanka balanka baxa. Tashanaad oo ah iskaashiga iyo isgarab istaaga. Amazon waxay shaqaalaheeda iyo madaxdeeduba isku garab istaagaan sida hal qoys oo kale, iyagoo aan istusin in la kala sareeyo. Waxayna u wada dhaqmaan sida walaalo meel ku wada nool. Madaxduna waxay tusaan shaqaalaha duruufaysan in ay la garab taagan yihiin wax kasta, taasoo kor u qaada maskax furnaanta iyo kalsoonida shaqaalaha, siyaadisana wax soo saarka shirkadda.